توصيل ها مرين جامعة واحد مرين جامعة مقعس أول بحد horta siday oola baxeen horta ayaga yaqaan balse waan baaray markaan baaray waxay u ahayd astaan gooni way ayaga isku gartaan xarfaanta صح laakiin saameynta maryan jaamac ay leedahay markaan fiiriyey maxaa kugu dhaliyay inaad maryan jaamac aad soo daawacday oo kuma fahmin soo daawacday macnaha sababta u soo daawacay inaan soo baayay dhalinyarta aan ugu digo because waa saameyn waa macaan yar ay dareemaan saameyn weyn ku leedahay camal ha waa macaan yar ay dareemaan balse waa macaan meel fog geynayo waayo waxay noloshoodu qabsan lahaayeen oo dhan ayay hal fadhi ku haystaan marka adigoo aanan saas u fogaanin maxaa kugu dhaliyey inaad maryan jaamac aad buug ka qortid waxay igu dhaliyey inaan buug ka qoro maryan jaamac dadku horta maryan jaamac ma yaqaanaan waxaad yaqaana xarfaanta ha maadaama anigoo xishmaynaya xarfaanta magacoodii ayuu wataa saameynta markaan ay ku leedahay ayagu ayaa dareemi karo ayagaana markaan macnaha ka hadlo aan qoray qoraalkeyga ay arkaan ama bulshadu ay arkaan ayaga ayaa wixii ka dhiman dhamaystiri doono wixii aan ka qaldana ka sixi doono so si aan markaan dhalinyartu kuwa dambe oo soo socda ay u ogaadaan saameyntu ay leedahay ha waa arrin hordhaca inaan sida showga ay usii daawadaan berrito inay ka digtoonaadaan laakiin kuwa joogo inay noqdaan macallimiintii soo maray oo ay casharo ka bixiyaan oo ay maalmaha ka mid yihiin jaamacadeydina ay ugu yimaadaan ay macallimiin ka noqdaan nin kastaba maadadii uu ku takhasusay waayo waxaan waa cilmi kale oo nag gooni ah waayo hadda binki blue markaan hadda adig kaa wareysanayo binki blue qofkaani markuu ciyaarta soo galaa daqiiqada ugu horeyso caadi waayo waa dheelayaa laakiin shantii daqiiqo markay dhaafo shantii kale oo dhexdeeda la maraayo toddobada nambarka toddobaad la maraayo binki blue waa hurdaa ha waa hurdaa marijaana waa soo jeedaa laakiin aniga buug weli aanan qorin waa dharbaxtida buuggii aan ka qori lahaa inaan helo waayo qof ku takhasusay oo macallinka ah waaye ma heshay taageero wax dadku ugu taageera programkan si oo aad cityga iyo sidii horta waxba kama raadsan ugu taageeray horta taageerada ilaahan ka sugaya intuu ilaahay soo hadeeyno way raaci doontaa balse barnaamijkan waa barnaamij taxane waxaan rabnaa inay bulshadu kuwaana qaadato macallimiin fara badanna way noo imaan doonaan waan fahamsan maxaa ku leedahay dhalinyarada maxaa ku leedahay oo hadda soo kacayso maryan jaamacda iyo bink blue dhalinyarada maxaa ku leedahay bal dhalinyarta waxaan leeyahay horta maryan jaamac iyo binki blue iyo dharbaxti iyo sangor wax kasta hata horta magac kasoo wadatiin waxaan dhihi lahaa hal mar waxaad dib u aqrisiin noloshiini aad ku soo korteen iyo sidaad ku timaadeen meesha maanta ku nooshiin waxaanad ka fikirtiin sababta aan idiin soo badbaadiyey keligiin oo dadkii kalena weli ay u qarxayaan laakiin idinka idiin soo badbaadiy idiin keenay ilaahay idin jecel ha marka dhalinyarada waxaad macallimiinta mustaqbalka soo korayso macallimiin hadda yuuna idinka qaldamin alifkaaga hadduu qaldama albaqradaada ma toosayso markaan dhalinyartu waa inaan u noqono tusaale hadday sidaa ku qarsadaanna dee waxaad wax ku qarsaday waxaad qarsata way ku qarsadaan dee maalin dambe meel waxaad arkaysa adigoo ama ku tegay maryan jaamac ama ku tegay waxaa noo sheegtaa sida dareenka oo dadka maxay dareemaan oo maxaa loo daba dhacayaa waxaan horta waa wax kicinaya dareemahaaga dhowr dareemood qaar waxay kiciyaan dareemahaaga oo farxadeed camal
laakiin wax muddo joogaya ka farxadeeda camal yani macnaha qofku isticmaalaa farxada qofku macnaha wuxuu ka dhaadhacsan ku dareemo daqiiqadaha ugu horeeyo murankii iyo waxyaalihii ku furnaa iyo buuqii uu ka mashquulaya asagii macnaha steam ma u gaar ah nin kastaba ciyaarta meeshuu ka dheelaya ayuu ka galaya صح baaban soo maha si fiican nin waxaan waa wax addiction waxa ku jiro chemicalkana waxay ku samaynaysaa qofka inuu u baahnaado dhinaca markaa fiirisid caafimaad darada iyo dhimashada saaid waxaan dadku waxaan ka wansa qaadanaynin oo waxaan rabaa markaan taas adiga inaan kugu soo celiyo dhanka dhimashadu markaan miisaanno oo xitaa alcoholada aan gaarno post second